السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقيارتا دمان سودو هذا مركلي برنامج كنن مانتا أيا وحا وكساب سنيهي سؤال وإسو ويديي داوضي كحيران channelka oo la yiraahdo Maxamed ayaa su'aashi u qabay waxay ahayd in isaga oo jooga dalka Kenya ama dalkii hooyo ee Soomaaliya uu iibsan karo gaari taraag ah dalka Mareykanka looga shaqeeyo su'aashaas waan u koorgalay research badanna waa ku soo sameeyay waxa ii soo baxday jawaabtu waa haa gaari waa iibsan kartaa dalka Mareykanka looga shaqeeyo oo taraag ah marka hore waxa raadinaysaa company Soomaali ah oo ay maamulaan dad Soomaaliyeed oo aad ku raangareysid ama raangareeya taraagyo la wado oo owner operators ay iska leeyihiin companygaas ayaa waxa uu ku raadinayaa wuxuu ku keenayaa darawalkii gaariga uu ku maintain gareynayaa isaga khidmadiisa ka qaadanaya so maintenance-ga fuelka oo gaaska ah darawalka markii laga jaro wixii ku soo haro ba adiga leedahay as the owner operator oo investor ka ah ama maalgashiga sameeyay oo gaariga soo iibsaday so qofka uu sameyn karaa companiyo waaweyn oo waxaan arkay Ethiopian ay leeyihiin oo saas oo kale loo sameeyay oo dad dalka dibadiisa dad dalka gudihiisa joogaba ay investment ku samaystaan taraagaga soo iibsanaysa company ku darsanaysa isaga mas'uulka ah raridiisi darawalkiisi dispatchkiisi all this isaga company mas'uulkaaga noqonayo wixii ku soo haray faa'iido ahaan u qaadanaysa so saas way u shaqeeyaan company weyn oo ay leeyihiin Kenyaanka waa arkay oo Dallas Texas ku yaalo asagana sidaas oo kale loo sameeyaba owner operators oo aan gawaarida wadin iyaga darawalka saara iyaga maintain gareeya wixii ka soo harana waa qofka iska lahaa loo diraa so jawaabta waa haa dad Soomaali ah oo arrinkan sameeya ma jiraan waa su'aal ayadana jawaabteeda u baahan ayaan dhaweyto kuwa isku dayayo waa arkay oo i weydiinayay aniga nafteeda su'aalo ku saabsan sidii ay u shaqeyn lahayd arrinkaas laakiin ani arrinkaas investmentiga xaqiisa kama fiirin mana ka dhaxgalo laakiin waxaan ka dhaxgalay ama ay iga weydiinayeen su'aalaha sida magaca iyo authority-ga iyo company-ga lagu shaqeynayay loo soo deysan lahaa bay su'aal iga weydiiyeen markaan weydiiyay yaa ku shaqeynayana waxay ugu dhaheen dad baan rabnaa in investment ay ku samaystaan oo waliba dadkaas dalka dibadiisa ay jireen oo wadamadaas East Africa ay joogeen so lacagta dadkana qaadayo gaariga iyaga soo iibinayo iyaga maartay darawalka iyo waxa dhan operationka dhan kala kicinayo adiga owner operator waxa sugtaa waxa weeye markii qarashaadka laga jaro information-kaaga dhan maartay waxa dhan laga bixiyo qarashaadkii iyo wixii dhan laga jaro wixii soo haray in lagu soo diro so number 1 waa inaad heshaa dad aamin ah oo number 2 waa inaad heshaa dad investment ahaan u samaystay company-ga oo shuruuc leh oo bylaws leh oo wax u kala qoran yihiin not just inaad intaas ka gadato gaari iska dhex darsato qolyo hadhowna wax iska ka daba mariyo waxa jirto dad gabdho fara badan oo ku nool sida Minnesota iyo Ohio oo kale oo iyagu gawaari leh oo gawaarida aan wadin dad baa u wada company-ga uu ku jiro ayaa mas'uul oga ah in ay darawalkii iyo hawshii iyo wixii ay isu dul saaraan wixii ka soo harana iyaga qaata laakiin dadkaas waxa ay kaaga duwan yihiin intay joogaan oo dalka Mareykanka ay joogaan qof iyo laba iyo saddexna waan arkay saas oo kale u samaystay gaari iskale laakiin dalka aan joogin oo way jiraan qof iyo laba iyo saddex laakiin dad ehelkooda u haya gawaarida so adiga waxa rabtaa laakiin qof ehelkaaga in raadismo u baahnid waxa u baahan tahay dad investment ahaan u samaystay in aad ku darsato gaarigaaga haddii aad hatta waxa heli kartaa inaad ku darsato kuwaas aan ku sheegay Ethiopianka kuwa Kenyaanka ku darsan kartaa Soomaalida I don't know for sure laakiin waa hadda ka dambe waa u sii kuurgalaya inaan Soomaali soo helo gaari intaan gata aan ku darsan karo
anigoo dalka ka maqan. That's important waa taas. So haddii aad taqaanid company sameeya investment noocaas ama maalgashi noocaas fadlan comment sectionka nagula soo wadaag si informationkaas uu gaaro dadka ku xiran channelka. Haddii aadan aqoonin dad arrinkaas sameeyo oo aad hadda raadinaysana iyadana waa ku xirnow channelka insha Allah taala. haddii information more aan soo helo ama dad sameeya arrinkaas waa idinkula wadaagi doonaa Kista TV page-ka oo Facebook aan ku leenahay iyo Kista TV channelka aan ku leenahay YouTube-ka intaba waan soo gelin doonaa insha Allah taala. laakiin jawaabtii iyada ahayd oo aan ku siiyey waxay ahayd yes it's doable, waa samayn kartaa, go right ahead. geesinimay u baahan tahay inaad arrinkaa ku dhaqaaqdid. keliya networking samee dad fara badan oo Soomaaliya raadi oo kambaniya leh si aad u ogaato qolada aad ka heli kartid in ay leeyihiin barnaamijkan iyo in kale. waa mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي سؤاله comment section إن شاء الله. Peace.